السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايز وايدين سلامي قيبتنا فراد فيلمكين كسو دوادا waxaan aragnaa faaloogu sii carara yacni gaari saaran yahay meesha uu saxdan ma naqaana laakiin gacantii dhaawac ka ahayd si sikinahayo iskaga daaweynaya dhinac kale sarfanaas ninka gudoomiyaha tuugada u diray oo ilaa hadeertan garaacaya kadibna faalooga meesha u baahnaayo imaanaya ciidanka gudoomiyahana waxay tusinayaan qabrigayaan wuxuu ku amrayaa inay qodaan ayagana hooshooda ay sii wadanayaan asigana wuxuu diyaarinayaa geedkaas uu ku matalay qofka maanta rabo inuu gaarsado kal sarfanaasha sigoo dagaalka u socday oo gaariga gudoomiyaha wuxuu ku dhufanaya nin uu garaacay kadibna waxaa soo baxaya meed ayagana aad u naxaya meedkaasna meed kalamaan waa meedka faalooga dhanka kale faalooga waxaana la tusinayaa maalinta dabraacay ruuxaanta oo na rabay inuu xakameeyo laakiin ruuxaanta asiga ka awood badinaysa waxaana soo muuqanaysa ruuxaantii taliyaha waxayna ka awood badinaysaa faalooga dhan awoodda faalooga lahaayna ayada la wareegayso isku markiina waxay isku bedelaysaa faalooga hooshan oo dhan faalooga ayaa ka dambeeyay dib gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa qofkan haduu faalooga qofka ciidankayga raacsiiyaa waana sarfanaashna wuxuu ku dhahayaa maxaad ku hadashayni maxaana ka wada ciidankayga ayaan raacsiiyay wuxuu u sheekeynayaa faalooga wuxuu ku dhahayaa faalooga wuxuu ugu dhahay meedka selfie meesha yaalay sheeg meedka selfie hadii la soo bixin ruuxaanta way bixaysaa tuuladana dhibaatada haysata way ka dhamaanaysaa ee amarkayga qaado ee meedkaas aan gubno kadibna ruuxaanta xakameeno asagan wuxuu ku dhahayaa maxaa sameysay hadirtan wax walba sidooda ay ku soo laabanayaan asagan wuxuu ku dhahayaa way iga dhaadhicin wuxuuna igu dhahay dhibaatada jirta dhan inay tahay meedka selfie anigana waxaan go'aansaday inaan dadkayga badbaadiyo meedkaas meeshuu ku duugan yahay uu sheego saas darteed ayaana ciidamadeedu raacsiiyay alfanaashna arrintaas hati oo u xumaanaya dhanka kale faalooga hoshiisa ayuu ilaa hadeertan wataa ugu dambeynna waxaa la soo bixiyay meedkii selfie faaloogan wuxuu ku dhahayaa banaanka loo soo saaro selfiina xaruurteeda ay quraac siisanaysaa oo waqti ay la qaadanaysaa laakiin si kadis ay qaf u taabanayo aydan way ka naxaysaa laakiin ayada dhan ayaa kor loo qaadanaya xaruurtan way naxaa waxaan ku dhahayaa hooyo soo noqo laakiin ayada ma awoodeyso si xoog la ayaan loo sii jiidanaya dambeynna banaanka ayaa la keensanaya ilmahan saayid ay u sii woonayaan kadibna waxaan aragnaa duurka meedkeedii yaala in ayada la soo dhigay faaloogan wuu ku farxayaa wuxuu ku dhahayaa waan ku faraxsanahay laakiin ayada way baryaysaa waxaan ku dhahaysaa sidaan ay igu sameyn ilmahaygan u laabto asigan warka wuu ka diidayaa kadibna wuxuu isku dayayaa awoodiisa inuu isticmaalo laakiin ayada meedkeeda ayay arkaysaa kadibna aad ayay u xanaaqaysaa kadibna dab ayay u shidanaysaa asiga ayayna ku tuuraysaa asigan run ahaantii qoriga ayuu iska qabanaya kadibna aad ayay u qaylinaysaa siday ugu awood badiso dambeena faalooga way ka awood badinaysaa asagan markuu arkay inay ka awood badiso geedka gacanta ku hayo wuxuu ka dhigayaa shimbiro badan shimbirahaas ayayna ayada iska celinaysaa midba midka ka dambeeyay ayayna dilaysaa waxayna u diyaarsanaysaa awood aad iyo aad weyn asiga ayayna ku tuuraysaa awoodda markay ku dhacdana asiga dhulka ayuu ku dhacay awoodna is celin weynayaa kadibna markuu dareemay inay aad u awood badan tahay in dadkoo dhan dilaysa wuxuu isku dayaa awoodiisa inuu isticmaalo wixii raraanqalada qabriga ku jirdhanna wuu soo bixinaya sidoo awoodiisa ugu saa'idaysto ugu dambeynna raraanqaladyadoo dhanna waxay noqonayaan garabkiisa asiga ayayna dhexgalayaan sidoo awood oo helo kadibna waxaan aragnaa asiga awood saa'ida inuu yeeshtay tookadana qaf celin karta malahan idan markay ka sii dambayso waxay isku dayaysaa asiga inay iska celiso laakiin tookadaas kama celin karto waayo wuxuu haystaa ruuxaama aad iyo aad u awood badan kadibna ayada way isdhiibaysaa sababtoo awooddu asiga haysta ayada ma haysato inta tabarteeda ahna way dadaashay ugu dambeyn asiga wuu xirxirayaa wuxuuna ku dhahayaa bisoo way ku dhamaatay ayadan way baryaysaa waxaan ku dhahaysaa xaruurteeda ayaan u baahana waa ku baryaa sidaan ha igu sameynin asigan kama yeelaa awoodiisa ayuu isticmaalayaa ugu dambeyn iyadoo dhan kor ayuu qaadayaa wuxuuna dhexgelinayaa meedkeeda sidoo labadooda iskugu gubo kadibna dib ayuu shida labadoodan meesha ayuu iskugu gubay ugu dambeynna waxaan aragnaa selfie ruuxaanteedba halkaas inay ku gubanayaan dibna meesha sarfanaashay ay mahanaa gacantoo meesha taalayaan waxaa loogu dhigayaa ul lugaha ayaan loogu dhufanayaa asigan wuu dhacayaa markuu dhac kadibna faalooga ayuu weynayaa kadibna wuxuu isdhahayaa xaguu aaday dibka ayuuna fiirinaya wuxuuna ku xumaanayaa walaashiisa in la gubo ugu dambeyn dib dambena ay soo bixi doonin ruuxaanteeda kadibna selfie meesha soo istaagayso ayadoona aad u huluceyso kadibna ayadoo dhan ayaa qarsoomayso sarfanaashna waxaa soo qaadanayaa gaari wuxuuna soo waxayaa maya wuxuuna ku dhahayaa faaloogaya xaggiin uu soo socdo ruuxaantan asiga ayaa isku bedel waa inaan qolka gabadha bedeshaan ayagana aad iyo
aad ayuu naxaya waxaan ku dhahay sideen u badbaadin doonaane kadibna waxay ku dhahaysaa aniga qorshe keenay maamadan waxay dhahaysaa Faallow sideen ugu badbaadnaa kadibna Maaya waxay ku dhahaysaa si qorshe ayaan hayaa kadibna albaabkii waxay saaraan wixii alaab guriga taalan dadkoo dhan waxay ka nacsan markay maad waxay ku sameyn doono Maaya ayaa habriyartan markay dhameeyaan alaabtoo dhan meesha ay dhigaan waxay dhaayaan xagee ka baxnaa kadibna waxa la albaabkaas kala soo fur albaabkii kale ayagoo ka soo bixi rabaan waxay arkayaan Faallowga ayagana aad ayay u naxayaan Faallowgan habriyartan uu fiiriyay oo ku qoslaya habriyartan ma gabaaleysa idan way ku qoslaysaa kadib Maaya Faallow waxay ku dhahaysaa halkan way xirantaa sidee ugu baxaysaane asigana inuu fiiriyay 5 daqiiqo laabta dhanka leexinaya kadibna habriyarta way naxaysaa waxaan ku dhahaysaa sidee waxaan u dhan ku sameysayne habriyartan Faallowga ay si xun u amaanaysaa kadib meesha waxay maanay Maaya awoowaheed waxaan ku dhahayaa dalaalka guriga soo dhawo habriyartan waxay ku dhahaysaa Faallowga halistaha iyo awoowaha wuxuu u maleynayaa dadaal kadib awoowaha Faallowga wuxuu ku dhahayaa aniga markaan yaraay timahan oo dhan ayaan qabay sidaadoo kale ayaan u qurux badnaay laakiin hadirtan duqnimo ayaa iga daba imaaday waxaan ku dhahayaa gabadhan ayaan rabaa inaan kuugu daro laakiin asigoo gurigan la gidin waxa ma hagaagayaan ayuu ku dhahayaa ugu horreyn waa inaad guriga gadaa ayaan awoowaha ay ku qaynaysaa gacantan way ka fujinaysaa kadib feerweynkiya meeshmaana waxaan ku dhahayaa Faallow wax xirtid aniga ayaa ku soo tusinay ninkan warkiis iska dhaaf laakiin meesha aabaha Maaya ayuu imaana waxaan ku dhahayaa Faallow guriga dhan waa inaan ku soo kala tusaa habriyartu waxay isku dayaysaa inay wax fahansiiso kadis ayay meesha ku jibinaysaa Maaya aabaheedan wuxuu ku dhahayaa Faallow anaa actually jibi saaxiibo adima lagu jibin ee soo bax gurigan ku soo kala tusaaye Maaya ay habriyartan qorshe ay keenayaan waxaan ku dhahaysaa aniga ayaa qorshe fiican hayo laakiin ninkan waa inay si mashquulisaan habriyartan xiriga ay soo qabsanaysaa Faallow ayayna qoortu gelinaysaa wayna soo jiidaysaa labadii nacasna waxay ku dhahaysaa ila jiida ayagan si xun ay u soo jiidayaan kadibna Faallow ayaa meesha soo istaagay feerweynkan wuxuu ku dhahayaa Faallow jiidoosa ka kale markuu soo jeestan wuxuu arkayaa Faallow inuu yahay asigana aad ayuu naxaya kadibna Faallow wajigiisa oo iskeenay asigana wuu naxaya kadibna timo ayaa u soo baxayaanba kadibna habriyarta way naxaysaa waxaan ku dhahayaa aadan kaaga cabsanayo dhidid badan ayaa iga socdo raalna qaduqdan cajuusada wax walba ka dambeysay anna ma barabin inaan sidaas kuugu sameeyo kadibna Faallow meesha uu ka tagayaa ugu dambeyn way soo dawracaan waxayna soo qaadanayaan rinji iyo burus iyo waxyaabo la mid ah kadibna sida Faallow ugu garaacaa Faallow markuu wax dareeman wuu soo jeesanayaa ka dambarika ay galayaan laakiin feerweynku uu isxilin weynaya Faallow ayuu ka hortagayaa kadibna gadaashiisa fiirayo isdhaay laakiin wuxuu arkayaa dadku dhan ee shaqooyinka la iska qabsan weyn asigana wuu naxaya waxaan ku dhahayaa maxasaan ka badaane habriyartan waxay ku dhahaysaa waxa xaqooya mujeedido asiga niyada iyo ka hadlaya waxaan ku dhahayaa dan si xun u fiiriyo way iga cabsanaya laakiin hada ka jeesta aniga asiga ka cabsanaya waxaan isku dayayaa Faallow inuu ilku dilo sidoo uu fiirinayo markuu daalan wuxuu ku dhahayaa indhaha isku qabanaya waa inaad horteeda kale xataa indhaha markuu kala furan wuxuu arkayaa Faallow si xun u fiirinayo asigana wuxuu ku dhahayaa maxaad u bixi weysan inaa ku dil maarabtaan laakiin Faallow dharbaaxsha ayuu ku waalaya dadkoo dhan way la yaabaan laakiin asiga dharbaaxsha ayaa lagu boobsiinayaa waxaan ku dhahayaa waa ku baryaa bas iga dhan laakiin bas lagama dhahayo si xun ayaa loo dharbaaxayaa habriyartan way ka naxaysaa wayna soo cararaysaa waxaan ku dhahaysaa miskiinka ma la dilayne asigana wuxuu ku dhahayaa markaa idinka aaminayaan baqalad galaaniga inaa idin aamina ma aheenin hadirtan waa kana Faallow igu dirteen markii qolka gabadha la keenana Faallow wuxuu ogaanayaa gabadha inaysan jiifin kalbanaanka waxaa ka dhacaysa xaflad aad iyo aad u weyn xafladaasna waxaa loo sameynayaa shaydaanka waxaan lagu toogtaa shaydaanka kadibna Maaya iyo gabadha yariista waxay imaanayaan xafladaas dhexdeeda Faallow aad iyo aad u raadinayaa tookadan wuxuu awoodayaa mandarkiin oo soo galo maadaama oo haysta laba nafood oo awood badan waana midka taliyaha iyo midka wiilkii la dhahay Rafi kadibna markii aragta Maaya way ka cararaysaa asigana miriqleeda ayuu weynayaa Maaya ayuu si xun u raadinayaa kadib asigii Maaya ay is arkayaan wuxuu arkayaa inaysan gabadha wadin kadibna wuu dareemayaa gabadha inuu waday sarfanaash ayuu buursanayaa kadib soo buursanaya sarfanaash wuxuu dhaxgalayaa shaydaankii la gubayo asiga soo dhaxgalaya kadibna wuu isqeybina wuxuu iska dhigayaa 20 xabii ka badan oo Faallow leh asigana markuu midaas arkaatiyad ayuu naxayaa dhinac walba sarfanaash aadan wuu ka daba baxaya sarfanaashna gabadhiisa ayuu dhinac kale u diraya laakiin gabadhiisa aad iyo aad loo bursanaya sarfanaashna Faallow walba qabta asiga aad ayuu u garaacaya
midba midkii kasoo horbaxay oo dilaya. Wuxuuna isku dayayaa sidoo gabadhiisu badbaadiyay Faallo walba soo hor istaaga asiga inuu dilo. Ugu dambeyn Shakti meel ayay fuulaysaa sida ayada nafteeda u badbaadiso, laakiin Faallo ayaa soo dababursanaya. Markii aragtin uu soo dhawaadana ayada way qaylinaysaa. Kadib abtigeeda ayaa geedka ku taagnaa ay jaraayo, asigan dhulka ayuu ku dhacayaa. Kadibna sidaas ayay ku badbaadaysaa Shakti, laakiin Faallo ayaa ku boodaya Shakti sidoo u qabto, laakiin ayada inta isdifaac isdhaysa ayay dhinac kale ku dhacaysaa. Geedkii ku xirnaayeen wuu furmayaa. Kadibna waxaan aragnaa ayada nolol iyo geeri inay u dhaxayso. Markuu arko Sharfanaa midaasna wuu soo badbaadinayaa gabadhiisa. Kadib markuu badbaadiyay Faallo kale ayuu dilaya, yacni qorsho uu degay ayuu ku dhimanayaa Faallo kale. Shaktina sida nafteeda u badbaadaysa ayada alwaax ayay koraysaa sidana Faallo u cararto. Faallo tookadan hasinka ayay u badbaadaysaa maadaama asiga uu soo dhawaayay, waxaana badbaadinaya abtigeeda ayaana hab siinayo. Kadibna Faalloyaashii dhan markii la dilo hal Faallo ayaa soo haraya. Halkaas Faallona wuxuu ku fikirayaa ugu horeyn inuu Sharfanaash dilo, laakiin Sharfanaash qorshe ayuu u degayaa, asiga ayuuna meel kasoo lalminayaa. Ugu dambeynna Faallo ayaa dhul ku dhacayo. Faallo markuu dhul ka dhaco kadibna tabartii dhan ayaa ka dhamaanaysa. Wuxuuna ku fikirayaa wixii shayaadiimo dhan oo Faalloyaasha kale ku jiraan inuu soo baxso sidoo awoodiisa ugu kordhiyo. Isku markiina gudahiisa ayay galayaan awood saa'id ayuuna yeelanayaa. Kadibna Sharfanaash markuu midaas arko wuxuu fiirinayaa sanamtan wuxuu arkay inay dabka shidatay. Kadibna wuxuu ka faa'iideysanayaa dabka sanamka shiday iyo shaydaanka markii la gubayo inuu Faallogan ku dhex dhinto. Ugu dambeyn Shakti siday u soo cararaysa waxay soo korfuulaysaa shaydaanka heshiisa. Meesha ayaan dadkoo dhan ka fiirinaysaa, laakiin meesha waxaa imaanaya Faalloga. Wuxuuna isku dayayaa Shakti inuu qabsado, laakiin Sharfanaash ayaa meesha soo galaya. Shakti ayuuna qabanayaa meesha ayuuna iska soo tuurayaa. Faallogan aad ayuu u xanaaqayaa, laakiin sanamta ayaa waxay soo tuuraysaa falaar oo dabka shidan. Shakti iyo abtigeedna waxay kusoo deganayaan darbaalka lagu dhisay shaydaanka. Faallogan markuu arko falaarta aad ayuu u naxayaa wuuna isdhaqaajin weynayaa, laakiin falaarta waxay isku bedelaysaa qof caadi oo sanama. Asigana aad ayuu u naxayaa, tookadana asiga isma badbaadin karo. Faallogan tookadaniiti meelo u baxsan kara malahan. Ugu dambeyn markii falaarta la soo tuurana wadnaha shaydaanka ayay ku dhacaysaa. Shaydaankii dadka aaminsanaayeenna waa la gubayaa. Faallogii halista badnaayna meesha ayuu ku dhimanayaa. Run ahaantii meeshan waxaan ka arkaynaa raranqareedyo aad u badan. Xitaa waxaa ku jirta raranqareedyada Selfie gabadhii la dilayay iyo Selfie ninkeeda iyo Ravi macal taliyaha. Dadkoo dhanna meesha ayay iskula gubanayaan. Maayaana waxay ku farxaysaa Shakti inay nabad qabto, waxayna fiirinaysaa Sharfanaash run ahaantii markaan aad ayuu u faraxsan yahay maadaama uu badbaadiyay ilmaha walaashiisa ee dhashay. Ugu dambeynna sanamta ayaa la tusayaa foolxumada badneeda. Kadibna waxaan aragnaa gurigii Selfie. Sharfanaashna wuxuu u dhiibayaa feel, wuxuuna ku dhahayaa waa isbitaalka Maayaa loo dhisi rabo, adiga saxiixaaga ayaan lagu dhisi karaa, wax walban way hagaageen ayuu ku dhahayaa. Maayaan dadkoo dhan ayay waxay siinaysaa macmacaan. Beerweynkii Selfie ninkeeda lacagta ku lahaayna lacagtaada ayaa lagu siinayaa ayaa la dhahaa. Ugu dambeynna ilmaha banaanka ayay u soo baxaan. Waxaan aragnaa Selfie inay soo laabatay. Filimkeena quruxda badnaan halkaas ayuu ku dhamaaday. Muuqaalkan daakaashan like noo saara, subscribe noo taabta, gambaleelkana fura. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. Mac salaama.